بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله ولو قاتلكم هديد لدغالم لهايين الذين كوي هديد لدغالم لهايين كفروا قالوا بي كوان هذا الصلح الحديبية هشيسك aad la gasheen hadii soo jeesan lahaayeen oo heshiiska aysan gali lahayn lawal adbaara dabooyinkay jeedin lahaayeen kuwa naftooda sulx aad la gasheen haday idin soo qaabili lahaayeen ilaahay jibin lahaa subhanahu wa ta'ala ayagoo idinka cadad badan oo ciidankoodu uu badan yahay oo idinka hub badan ilaahay argagax ku ridi lahaa subhanahu wa ta'ala thumma markay dabada jeediyaan la yajiduna mahalayan waliyan mid arrinkooda tawalliya oo iyaga u dhaw maamula oo iyaga xanaaneeyo ma helayaan walaa nasiiran mid u gargaara oo difaaco muuminiinta ka difaacana ma helayaan mar haddii ilaahay khidlaan iyo hoog ilaahay uu ku salliday subhanahu wa ta'ala sunnatullaahi ka sunnatillaah waxaan ku nasbinaynaa nas'ul khaafid sunnatullaahi ka sunnatillaah ilaahay wadadiisii oo kale way sida habkaas gaalada ilaahay ula dhaqmay muuminiintana nasriga ilaahay uu siiyay وطريق إلهي وليجيب وكسر عن جري سبحانه وتعالى التي سنة وقد حقيقة خلت تكتي من قبل هريء صوت تكتي سداسة إلهي طريقة وليجيب كل معاملون جري قالوا مركي إسكبريان با كبر كودا إلهي جبين جري سبحانه وتعالى مؤمنين يا أنبياء يا مسلمين تنا سداسة إلهي النصر أسين جري وليجيب ولن تجد أذوق مهل يسد لسنة الله إلهي وضديسي وكسو عن جري تبديلا بدلت أهل ميسدو معاملة إلهي قالت وكل معاملون جري وليجيبا عد بدلي كرتاه مجرته سداسو إلهي كل معاملونا سبحانه وتعالى وإنه مروا الباب الدليو وإنه إلهي هو كرده وإنه مؤمنين إلهي عز إيا شرف مروا الباب إلهي وقارسي سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم آيادا إلهي وحكوت المامي سبحانه وتعالى dadkii gaalada ahaa ee nabigeena u diiday sallallahu alayhi wasallam inuu soo umraysto oo magaalada Makka al-Mukarrama uu ku soo cibaadeysto xumaantoodii iyo qabaa'ixdoodii iyo foolxumadoodii ayaa Ilaahay noo tilmaamay subhanahu wa ta'ala wa huwa ilaahay alladhi way kaffa celiyay aydiyahum gaaladii gacmahoodii cankum xaqiina ka celiyay وأيديكم أدينك قعمه نينا عليي عنهم قالوا حقودي كعليي ببطن مكة في بطن مكة مقالة مكة علوشة دحديدنا قعمه دي إذنك عليي وإذنك قلابي من بعد أن أظفركم مركو إلهي إذن قوليي كبعدي أيو قعمه إن إلهي عليي عليهم عدوكي قالوا دشودنا إلهي وقول إذن كسيي سبحانه وتعالى والنعمة وين إلهي ذاتك مؤمنين إلهي كما نشيغنايو نعمة صوابتها يكون عدي وحي هيد مركي سلح الحديبية ودعي وهشيسكي لكلا صحيح لي وهشيسكي ودمادي أيها حماتدو دي إسلام مركي وقالد وحي باللابين لقر إيا خيانو ومؤمنين إيا النبي لكريان خيانيا صلى الله وسلم وبارك عليه خيانة داسنا وحي كل عدي وحي سسور راعي سيديتنن وعدوكي قالد كمدا وسيديتنكي كسعودي dadkii hadda heshiiskii saxiixday oo heshiiskii uu qoyan yahay 80 kaas marka waxay isku dayeen inay gaadaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dhibaateeyaan iyo asxaabtii nabiga alayhi salatu wasalaam 80 koodii marka saxaabadii yaa soo qabtay wala soo qabtay 80 kii cadawga ahaa rasuulka loo keenay sallallahu alayhi wasallam rasuulka markii loo keenay waxa la rasuulka ilaahayow hadda saxiixii uu qoyan yahay ay saxiixi ka bixeen oo ballankii iyo dhagartan iyo haddana sameynayaan nimanka cadawga gaalada waxay doonayeen inay ku dhagraan ay ku khiyaanaan oo ku dhibaateeyaan dadka muuminiinta ay dhibaato ay u geystaan rasuulku marka wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam dhagarta ay walba ahalay u ahaayeen bilowgeeda iyo aakhirka dhagartaba iyaga xaqooda ha xigtay iska sii daayay rasuulku sallallahu alayhi wasallam khiyaanada ha bilaabaan hana ku dambayso iska daayay waxba dhibaato ha gaarsiineen
saasuu rasuulku u sii daayey sallallahu alayhi wasallam nicmadaas iyo foolxumada ay sameeyeen gaaladu ayaa ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay wa huwa ilaahay alladii allihii wey kafa reebay aydiyahum gaaladii cadowga ahaa gacmahoodii cankum xaggiinni ka reebay oo markay doonayeen inay idin gaadaan ilaahay idinka difaacay subxaanahu wa tacaala ee dhagartoodii uma suurto gelin wa aydiyakum gacmihiinniina ka reebay canhum cadowgii gaalada oo adinkana uu adinkii iska fasaxay oo iska manno sheegtay oo nabigu yidhi iska sii daaya sallallahu alayhi wasallam si heshiiskaasi uu dhaqan galo maadaama heshiiskaasi bidaaya iyo bilow uu u yahay fatxu maka magaaladii maka oo fatxigeediiba uu bilow u yahay heshiiskaas bibadni makata fii badni maka magaalada maka caloosheedii calooshaas dhexdeeda ayaa gacmihiinnii ilaahay ku reebay subxaanahu wa tacaala min bacdi an adfarakum ilaahay markuu idin guuleeyey ka bacdi ayaa gacmihiinnii ilaahay uu reebay waxaan ku tacalujinaynaa wa aydiyakum canhum wa kafa aydiyakum canhum min bacdi an adfarakum ilaahay markuu idin guuleeyey ka bacdi ayuu gacmihiinnii reebay kafadaan ku tacalujinaynaa kaf calayhim cadowgii dushoodana ilaahay uu idinka guuleeyey wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday bimaa shaygaasoo tacmaluuna aad samaynaysaan basiiran mid arkayuu ilaahay ahaadoo markaad cadowga ku manno sheeganayseen ood sii daynayseen iyo acmaashiinoo dhan ilaahay uu la socday ilaahay uu arkayay subxaanahu wa tacaala qabaa'ixdoodii marka maxaa ka mid ahaa qabaa'ixdoodii qaybo ka mid a ayaa ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala cadowgii gaalada ahaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana hum kuwaas gaalada ah alladiina kuwii weeye kafaruu gaaloobay gaalnimadoodiina aan ku sinanoo wasadduukum idinka celiyey cani ilmasjidi alxaraam masjidu xaraamkii inaad ku cibaadaysataanna idinka celiyey oo idinka hor istaagay walhadya hadyigii iyo xoolihii la rabay xaramka in lagu gowracana hadyigaasna celiyey mackuufan xaal uu yahay hadyigaasi mid la xabisay oo loo diiday inuu xaramkiiba galo oo xaramkii in lagu gowraco masaakiinta iyo fuqaradii sadaqadii loo wadana hor istaagay cadowgaas an yabluqa can an yabluqa waxaan ku nasbinaynaa nascu lkhaafid an yabluqa can an yabluqa hadyigaasi inuu gaarana ka celiyey oo ka xabisay maxillahu makaanu xalaaloobidiisii meeshii la rabay in lagu gowraco waa xaramka meeshii la rabay in lagu gowraco booskii ilaahay ugu talagalay oo ilaahay uu u jideeyey ayay ka celiyeen hadyigii uu waday rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay subxaana maadaama xumaatada ay sameeyeen walowlaa rijaalun rag ma ahaateene raggaasoo mu'minuuna ee mu'miniina wa nisaa'un dumar ma ahaateene dumarkaasoo mu'minaatun ee mu'minaada raggaas iyo dumarkaasoo lam taclamuuhum adinku aadnaan garanaynin oo aadnaan oqoonin waxaan ka dhignay calima oo cirfaaniye ah calima cirfaaniyaan macnaynay raggaas mu'miniinta iyo gabdhahaas mu'minaadka ahoo lam taclamuuhum aadnaan garanaynin oo inay mu'miniin yihiin iyo in kale aadnaan oqoonin raggaas haddaysan maka joogi lahayn gabdhaha mu'minaadka aysan maka joogi lahayn oo mustadcafiinta ah an tada'uuhum inaad ku joogsataan mu'minaadkaas iyo mu'miniinta ma ahaateene an tada'uuhum waxaan ka bedelaynaa rijaaluntii hore walowlaa rijaalun rag ma ahaateene an tada'uuhum ma ahaateene inaad mu'miniinta ku joogsanaysaan oo seefihiinna iyo warmihiinna iyo fallaarihiinnu ay gaarayaan oo dilaysaan ka cabsigeeda ma ahaateene oo fa tusiibaku markaas ay idin asiibayso minhum mu'miniintaas xaggooda markaad dishaan ood laysaan macaratun cadho ay idinka asiibayso ma ahaateene iyo ceeb macara waxaa laga soo qaatay min cara albaciiru ratigiyaa cadhoobay mufasiriinta ku fasiraaya bimacna alithmi ama bimacna alcaybi waa min baabi tafsiiri laazim waxaa la yidhaha tafsiiri laazim laakiin tafsiir lugawiya ma aha tafsiirka ereyga luqadiisa waxaa weeye macara cadho weeye cadho laakiin cadhada waxaa ka laazimaya ceeb iyo dembi marka waxaa loola jeedaa uun waa dembiya idinka soo gaaraya iyo ceeb oo fa tusiibaku markaa ay idin asiibayso minhum mu'miniintaas aad layseen idinkoon ka warqabin oon ogeyn magaaladii maka haddii dagaal idinkugu fasixi lahayd ku dagaalami lahaydeen mu'miniinta mustadcafiinta aad layn lahaydeen markaas waxaa idin soo gaari lahaa macara
cadda idin asiibi lahayd waxaa loola jeedaa bimacna alcaybi walismi ceeb iyo dembiya idinku dhici lahaa markaas bigayri cilmin cilmi la'aan xaal aad ku sugan tihiin ayaa ceebtaas iyo caddadaasi idin gaari lahayd idinkoon ka warqabin saas ma ahaateene oo arrimahaasi dadkaas mu'miniinta ah loo turi oo loo naxariisanaa ma ahaateene lamaa kaffa aydiyakum gacmihiinna ilaahay maba reebeenba ee wuxuu idinku fasixi lahaa magaalada maka inaad dagaal ku qaadaan laayo cadowga iska celiya ayuu ilaahay idin dhihi lahaa subxaanahu wa tacaala aayaddan waxaa laga fahmay qofka muuminka ah xushmada uu leeyahay xushmada ilaahay agtiisa dhiiggiisa uu ku leeyahay maadaama dagaalkii magaalada maka almukarama xilligii sulxul xudaybiya uu dhacayay sababta loo joojiyey dagaalkaasba wuxuu ahaa dad mustadcafiin ahoo mu'miniin ah iyo gabdho mu'minaad ah ee magaalada maka almukarama deganaa ayaa waxaa laga baqayay seefaha muslimiintu inay gaaraan oo dadka mu'miniinta meesha lagu laayo inta loo maleeyo dad gaalo ah oo lagu khaldamo sidaas awgeedu u dhacay sulxul xudaybiya loo joojiyey dagaalkii maka almukarama inuu nabigu ku qaado sallallahu alayhi wasallam taas marka waxay ku tusinayaan qofka muuminka sha'nigiisu inuu ilaahay agtiisa uu ka weyn yahay dhiigga muuminku ilaahay agtiisa inuu ka weyn yahay subxaanahu wa tacaala walowlaa rijaalun rag ma ahaateene raggaasoo mu'minuuna mu'miniin ah wa nisaa'un dumar ma ahaateene dumarkaasoo mu'minaatun mu'minaad ah raggaas iyo haweenkaasoo lam taclamuuhum aadnan garanaynin wax ay yihiin an tada'uuhum ma ahaateene inaad ku joogsanaysaan mu'minaaddaas ma ahaateene oo fa tusiibaku markaas ay idin asiibaysay idin gaarayso minhum mu'miniintii aad dhibaatada gaarsiiseen xaggoodii macaratun cadho ay idinka asiibayso oo yacni ceeb iyo dembi oo idinka asiibayo ma ahaateene bigayri cilmin cilmi la'aan xaal aad ku sugan tihiin idinkoon ka warqabin ceebtaas oo idin soo gaarayso ma ahaateene lamaa kaffa aydiyakum gacmihiinna ilaahay ma celiyeenoo magaalada galu ilaahay idin dhihi lahaa subxaanahu wa tacaala liyudkhila allaahu fii raxmatihi man yashaa facala ilaahay wuu sameeyey kafa alaydi gacmahaas uu laabay oo magaaladii inaad gashaan ilaahay uu idiin diiday arrinkaas ilaahay wuu sameeyey muxuu ilaahay u sameeyey liyudkhila allaahu ilaahay inuu geliyo fii raxmatihi naxariistaa dhexdeeda man ruux ilaahay inuu soo geliyo ruuxaasoo yashaa'u ilaahay uu doonayo asbaabta kaleoo magaalada maka almukarama xilligii sulxul xudaybiya uu dhacayay magaalada in loo galo ilaahay uu u diiday ilaahay wuxuu ku tilmaamay ilaahay wuxuu rabaa dad xilligaas gaalo ahaa inuu ilaahay mu'miniin ka dhigo oo naxariistiisa ilaahay uu soo geliyo subxaanahu wa tacaala wa ficlanna sidaas way dhacdayo magaalada maka almukarama dad jabaabiraahoo joogi jiray oo waaweynaayo kufriga ku fogaaday way soo islaameen xilligii cahdigii sulxigu uu socday xilligii heshiisku socday ayaa dad badan oo magaalada maka almukarama ee gaalo waaweyn ahaa ayay soo islaameen oo naxariista ilaahay ay soo galeen subxaanahu wa tacaala marka laba sabab ay aayaddu noo sheegiyo dadka mu'miniinta ah oo mustadcafiinta ah in la xaq dhowrayo waa sababka labaadna waxa weeye dad kaloo gaalo ah oo ay dhici karto xilliga sulxul xudaybiya uu socdo inay iyaguna diinta ku soo biiraan ay soo islaamaan low tazayaluu ilaahay wuxuu yidhi hadday soocmi lahaayeen muslimiintaas dadka mu'miniinta ah ee mustadcafiinta ah ee magaalada maka lagu haystay dadkaas hadday gooni u soocmi lahaayeen lacadabna aladiina kuwii waan cadaabi lahayn kafaruu gaaloobay oo minhum kuwaas cadowga ka mid ah waan cadaabi lahayn cadaaban aan cadaabi lahayn cadaabkaasoo aliiman naftooda xanuunjiya oo yacni adinkaan idinku sallidi lahayn dadka mu'miniinta haddii magaalo gooniya ay deganaan lahaayeen oo gaalo saafi ah magaaladii ay joogi lahaayeen waan idinku sallidi lahayn si yacni gacmihiinna ilaahay ugu cadaabo subxaanahu wa tacaala id waqti ayaan cadaabi lahayn waxaan ku tacallujinaynaa lacadabna id waqti ayaan cadaabi lahayn jacala aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu gaaloobay fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ay yeeleen alxamiyata santaag iyo kibir qalbigoodii waxaa ka buuxsamay kibir iyo santaag xamiyata aljaahiliya xamiyata almillati diintii santaaggeedii ay quluubtooda yeeleen milladaasoo aljaahiliyati jaahilnimada loo nisbeeyey
وملة الكفرية diintii ay haysteen oo nifaaqa iyo kufriga iyo jaahilnimada ku salaysnayd taasaa waxay ku kaliftay inay san taagaan kubraan maxaa yeelay kibirka mar walbaba wuxuu ka yimaadaa jahli iyo diin la'aan uu kibirku ka yimaadaa mar walbaba إذ وقتيان عذاب لهين جعل الذين كوي أيالان كفروا قالوا بي في قلوبهم قلوب تودا الحمية سنتاج أيالان كبرية إسلوينية قبويني حمية الجاهلية حمية الملة دينتي قبويني دي سنتاج دي أي قلوب تودا أيالان ملة سوء الجاهلية جاهل لماذا اللون نسبي كفر جاهل لماذا دي وحي كلفتي inay san taagaan marka maadaama ay san taagayaan oo sida ay u kibriyaan waan idin ku sallidi lahayn oo waan cadaabi lahayn laakiin muuminiintaasan u turaynaa muuminiinta ku dhex nool oo iyaga ku dhex jira ayaan u turaynaa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala xamiyadan iyo kibirkan iyo san taagan ula jeedada laga leeyahay waxa weey markii nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu ka soo tagay magaalada Madiina al-Munawwara isagoo doonaya inuu soo umraysto umradii ka hor istaageen rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa kibriya qabweyni midda kale hadana waxay ku andacoodeen markii nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam anagu dagaal uma soconno cibaado iyo umraan u soconno hub ma wadaneen daaya markii rasuulku uu yiri sallallahu alayhi wasallam waxay yiraahdeen anagu waxaan diidaynaa carabta kale inay maqlaan oo yiraahaan nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam sid nabadgelyo ah ayuu isaga soo umraystay magaaladii Makka al-Mukarrama marka waxaan rabnaa dad wax diidi kara go'aan leh carabtu inay maqlaan oo ku sheekaystaan dad wax diidi kara oo go'aan leh inaanu nahay saas awgeed sanadkan iska laabo sanadka soo socda amarkeena iyo fasaxeena ku soo gal iska soo umrays arintaas marka waxaan rabnaa dadka dhigahooda dhan inay ku dhacdo oo nimankii nabigii dhamaan sallallahu alayhi wasallam ayay hor istaageen waxayna muuminiintii iyo muslimiintii amar ku siiyeen sanadka dambe inay soo umraystaan kibirkaas iyo santaagaas sida u sameeyeen iyo qabweynida إلهي وحوله سبحانه فأنزل الله إلهي وحو سودجي سكينة وحسلوني ديسي على رسول كيسي صلى الله عليه وسلم أي إلهي حسلوني كسودجي وعلى المؤمنين مؤمنين تدشودنا إلهي حسلوني كسودجي وألزمهم مؤمنين إلهي وحو لازمي كلمة التقوى كلمة الله كعبسك وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ayaa loo jeedaa kelimatu taqwa maxay ilaa kalimaadka ilaahay looga cabsado waa kelimada ugu weynka badan kelimatu tawxiid kelimadaas ilaahay laazimiyay wa kaanu waxayna ahaadeen muuminiintu ahaqqa ku xaqnimo badan biha bi kelimati taqwa kelimada taqwadana ku xaq leh ayay ahaadeen wa ahlaha kelimadaas ahalkeedana way ahaadeeno dad ahal u ah kelimadaas in la laazimiyo oo qalbigooda lagu sharxo oo ay ku dhintaan أهلي ويهين ويري إلهي سبحانه وتعالى ولما اطلع في قلوبهم من الصدق في العبودية والوفاء بالعهد والإخلاص أهلي ويهين مرك إلهي ليه قلوب تودي إلهي اطلاعي قلبي قودي إلهي طالع عدي وحي أقادي إن الكلمات أهل ويهين أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم وكان الله إلهي وحوى هذا بكل شيء كستا عليما متك علم له oo cilmiga ilaahay wuxuu ku ogaaday inay kelimadaas ahal u yihiin muuminiintii garabka nabiga taagnayd sallallahu alayhi wasallam laqad haqiiqa sadaqa allah ilaahay wa run sheegay rasuulahu rasuulkiisa wa run sheegay sallallahu alayhi wasallam ru'yadii uu arkay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay waa uga run sheegay bil haqqi haq xaal ay ku dheehnayd ru'yadaas ru'yadii xaqa ahayd إلهي وأقرن شيء رسولك صلى الله عليه وسلم يعني هذا كهرة رسولك صلى الله عليه وسلم وحكر يوضي أيضا ولا ليه هي مسجد الحرام تجي أديك يا أصحاب تادو أدينكو آمنة أو عدنا أدنى كعب سنين اسكسوا عمره سنة أيات جليسان مسجد الحرام كعبة سنة بتجليا الضوافية رؤيا رسولك أصحاب تأشياء صلى الله عليه وسلم مركي صلح الحديبية ودعي ورسولك ويري صلى الله عليه وسلم وانا لك عليي وانا لك هور استاغي عمردي وانا لابنيناه meeshan isaga xalaal noqonayna ka bacdina magaalada Madiina al-Munawwara u laabanayna oo nabigu ku yiri صلى الله عليه وسلم markaas saxaabo badan waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay aaw ru'yada noo sheegi jirtay soo nama dhihi jirin magaalada Makka al-Mukarrama waan galeynaa Kacbada waan dawaafayna
waan cumraysanayna si nabadgelyahood deganaan ku cumraysanayna sawdigii noo sheegay rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam markaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sanadkan weeye miyaan idin sanadkan ay arrintaas u dhacay miyaan idinku iri yani ilaahay subhanahu wa ta'ala ruuyada waa iga run sheegi doonaa adoonkii ilaahay aan ahay rasuulka ilaahay aan ahay ruuyadaasina waa xaq laakiin waa sanadka kale weeye rasuulku sallallahu alayhi wasallam ruuyadaasi maxay ahayd la tadkhulunna waad galaysaan masjidka ayaad galaysaan masjidkaas oo al-xaraam la xushmeeyay in shaa Allah ilaahay haduu doono masjidul xaraam waad galaysaan aaminiina xaal aatiin kuwa aamina muhalliqiina xaal aatiin kuwa xiiranaya ru'uusakum madaxyaalkiina xiiranaya wa muqassiriina xaal aatiin kuwa gaabsanaya oo madaxa gaabsanayo sida isaga soo cumraysanaya la takhaafuna xaal aadnaan cidna ka baqaynin ayaa sida isaga soo cibaadaysanaysaan oo ku cumraysanaysaan facalima ilaahay wuxuu ogaaday fi sulhil hudaybiyah heshiiskii hudaybiyah ilaahay wuxuu dhexdiisa ku ogaaday ma shaygaas oo lam taclamu adinku adnaan ogeyn heshiiska hudaybiyah waxa ku jiray qodobo aad dhibsanayseen laakiin aad ba dhibsataane ilaahay wuxuu ogaa wax adnaan ogeyn oo sulhul hudaybiyah inay maslaxada idin noqon doonto heshiiska sulhul hudaybiyah inuu maslaxa idin noqon doono oo ka mid noqon doono asbaabu fathi makkah al-mukarrama taasuu ilaahay ogaaday subhanahu wa ta'ala facalima ilaahay wuxuu ogaaday fi sulhil hudaybiyah heshiiska hudaybiyah dhexdiisa ilaahay wuxuu ku ogaaday ma shaygaas oo lam taclamu adinku adnaan ogeyn faja'ala ilaahay wuxuu yeelay min duuni dalik kaasoo kadiisa ilaahay wuxuu yeelaba fathan furid fathigaas oo qariiban ee dhow oo kii khaybaraba ilaahay idin furay subhanahu wa ta'ala intii makadii aad rabtaan inaad furataan makadii aad u socoteen oo galeyseen ilaahay wax ka sokeeyo uu ilaahay keenay subhanahu wa ta'ala wa fathu khaybara wa khaybaradii iyo qaniimooyinkii faraha badnaa ee ilaahay uu ka siiyay subhanahu wa ta'ala huwa ilaahay alladhi way arsala rasuulahu rasuulkiisa soo diray nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam bil huda hanuunin la soo diray wa diinil haqq diintii xaqa ahaydna la soo diray muxuu la soo diray liyudhira rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu muujiyo oo ilaahay uu xoojiyo diinkaas xaqa ah ala diinka uu ka xoojiyo ka saram mariyo kulli diin adyaanta baadilka ah iyo diimaha baadilka ah oo la sheeganayo kulligood in diinta islaamka uu ka saram mariyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo dacwadiisa iyo juhdigiisa uu uga saram mariyo saasuu ilaahay la soo diray rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa kafa billahi ilaahayana ku filan shahiidan min shahiidin mid marqaati fura ilaahay isaga ugu filan rasuulka sallallahu alayhi wasallam haday cadawgu diidaan risaalada nabiga alayhi salaatu wasalaam nabinimada nabiga ay inkiraan ilaaha marqaati ah subhanahu wa ta'ala rasuul xaq inuu yahay muhammadun rasuulullah ayadan ilaahay wuxuu ku amaanaa asxaabta nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo fadliga iyo qiimaha ay ku leeyihiin ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala محمد النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله رسولك إلهي والذين كوي معه رسولك معيسى هذا صلى الله عليه وسلم وأصحابتي سيئة أشداء كوات أدقوا على الكفار قال ذا كوات أدق رحماء كوان حريسته وبينه دحلو ذا اسكن حريسته صفات كاسا إلهي أصحابتك أماني وحوي قال ذا عدو قال ذا ويكوات أدقيهين ما دام عدوغي إلهي أيهين سبحانه وتعالى دحدودنا ويسكن حريستان ويسكن دمريان ويسكن تواضعان وهات المامه ذا كمدها تراهم واد أركتا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ركعا حال أيهين كوا ركوعسا سجدا حال أيهين كوا سجودسا محين عبادة أولجيدان يبتغون حال أي رادين يعني ركوعسيهين سجودسيهين فضل أي رادين يعني من الله إلهي حقي سنة فضل كرهادين أيان وردوانا رالي النقشان إلهي كرهاد سنة أيان عدنا وجه أغمر ربان عدنا السمعات أغمر ربان عدنا رديه سمر رجين أيان إلهي رديه سبسي رجين أيان سبحانه وتعالى تلمامها أصحاب النبي النساس أيان صلى الله عليه وسلم سيماهم على مدودة ضد أهل العبادة وإلهي رديه سرهادين أيان وحا علامي أستانوا أستانتو ذي على مدودو في وجوههم وجيالكو ذا دحدو ذي هات
wajigooda markaad fiirisid ayaa waxa kugu soo dhacaya xasuusta Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay bini aadamka waxa ugu khayr badan qofkii Ilaahay ku xasuusiya subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay cibaadada aathar iyo astaan iyo raadad ayay leedahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wajiyalka dadka mutacabbidiinta ah oo Ilaahay caabudaha wajigooda Ilaahay uu ka muujiyo taasoo ah khushuuca raadkiisa nuurka macnawiga ah qofka wajigiisa ka muuqanaya raadadkaasa ka muuqanayay wujuuhdii asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam siimaahum astaantooda iyo calaamadooda aad ku garanayso fi wujuuhihim wujuuhdoodu ahaaday min athari sujuudi la ajli athari sujuudka astaantiisa dartiis ay calaamadaas sida u ahaatay astaantii sujuudda wajiyadooda ka muuqda dalika wasfigaas tilmaanta sidaas asxaabtii loo soo tilmaamay inay yihiin dad rukuucsan sujuudsan Ilaahay ridihiisa raadiya calaamada astaanta wanaag wajigooda uu ka muuqdo wasfigaas mathaluhum asxaabta tilmaantoodii fi tawraati tawraadda dhexdeedana lagu tilmaamay quraankan ka hor quraankan iskaba dhaafe kutubtii hore oo samaawiga ahayd ayaa sidaas loogu tilmaamay asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam kitaabkii tawraad ayaa sidaa ku qoraa ومثلهم أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم تلمانتوده في الإنجيل كتابك إنجيل كأهد حديث لغو تلمامين كزرع أبور أو كلو أبور صور شيء أو كلو زرع قاسو أخرج صوصاري شطأه متان كيسي صوصاري يعني برواقدي انت كبضتي أيو متاني قيلي يعني وحن لي geedkii yaa laba sabool iyo 3 iyo 4 hal mar isla dhalay waa mataanay shadiga waxa la yiraahdaa hadii miro fara badan geedku uu xambaarsan yahay zarcigaas oo akhraja soo saaray oo bixiyay shadahu mataankiisi waa mataanay sida u dhalay barwaaqada uu joogo faazara shadigi saboolkii mataanka ahaa wuxuu xoojiyay zarcigi saboolkii markuu mataaneeyay geedkii waa xoogsanaaho geedkii awood u yeelana fastaghlada zarcigii oo geedkii ahaa wuu qira weynaaday geed xoog laho qira weyn uu noqday fastawaa geedkii oo zarcigii ah wuxuu sinaaday oo ku istaagay calaa suuqihi shanshooyinkiisii ayuu zarcigii ku istaagay maxaa yeelay geedka haddii sabuulo fara badan uusan xambaarsanayn oo tusaale ahaan kaligiis uu geedku meel taagan yahay balkaas waxa dhici karta dabaylaha yar yar inay iska tuuraan oo dhinac u ridaan laakiin hadduu mataaneeyo qiru yeelana awood u yeelana bixasabi mar walbaba intuu dhalo oo sabuulkiisu la eg yahay ayaa geedka majintiisa iyo xooggiisana nafaqo u qaadana geed xibin leh oo nafaqo buuxda qaata ayuu isaguna noqonaa geedkii sidaas waxaa lagu tilmaamay asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam kitaabkii injiil maxaa marka tashbiihaasi wuxuu yahay zarciga waa la ogyahay markii hore wuxuu ka soo bilowday hal xabo dhulka lagu riday halkii xabo dhulka lagu riday geed uu noqday bal uu noqday waa soo baxay geedkii haddana mataano badan dhalay sabuulo fara badan uu dhalay ujeedada laga leeyahay waxa weeye asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa geedkaas oo kale marka hore waxay ku bilaabanayaan min qilla yaraanay ka soo bilaabmayaan hal nin soo islaamay labay noqonayaan tobanay soo noqonayaan boqolay noqonayaan ilaa islaamkii uu ka xoogeysto oo geed weyn oo la harsado ay noqdaan asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam geed weyn oo itaal leh oo xibintiisa iyo suuqiisa aan la ruuxi karin ilaa ay ka noqdaan asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam say isu soo tarayeen ay u soo xoogabayeen يعني قوة معنوية وجسمية أي إلهي كل مي سبحانه وتعالى قوة معنوية وإيمان كودنا حوق لها قلوب تود إطالة إلهي حق جسمنا إلهي إطالة سي حق عددنا إلهي وكبده سبحانه وتعالى فاستوى جيتكي وصل ناظر بمعنى وكو استاغي جيتكي على سوقه وجمع ساق على سوقه جيتكي شنشوينكيسي يعني حبنتيسي وكو استاغي لولا جيدا يعجب زرعك النوعاس أبحي وصلا أمتانيي وأود ياشي زرعكاس وحو عجب قليا الزراع بيرليد بدك بيرليد هو أبورتي أيو عجب قليا مركو سلاس جيتكو أمتانيي
oo sabuulku uu sidaa u mataaneeyo oo itaalkiisu intaas uu la ekaado beeralaydu waa ku farxan maxaa yeelay waxay og yihiin miro badan inay ka guranayaan facala ilaahay waa sameeyey saxaabadii awooddaas iyo cadadkaasuu ilaahay u yeelay muxuu cadadkaa ilaahay ugu yeelay liyagiida ilaahay inuu ciilo bihim asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam alkufaara cadowga gaalada inuu ilaahay ku ciilo ilaahay raba waxa ilaahay cadadka ugu badinaa asxaabta oo awoodda iyo itaalka ilaahay uu ugu yeelayo waxa weeye cadowga gaalada in ilaahay ciil uu ku rido maxaa yeelay mar walbaba markay arkaan cadowga gaaladu cadadkii saxaabadoo sii kordhaaya iyagoo sii badanaya iimaankoodu uu sii xoogaabayo iyaguna waa sii shuuqayaan oo ciilay la sii shuuqayaan wacada allaahu ilaahay uu ballan qaaday aladiina kuwii ilaahay uu ballan qaaday aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyey oo wacamiluu camal falay assaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay oo minhum asxaabtaas ka mida makfiratan dembi dhaaf ayuu ilaahay u ballan qaaday iyo wa ajran ajirkaasoo cadiiman ee weyn saasuu ilaahay u ammaanay asxaabtii nabigeena sala allahu calayhi wasalam wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wajal